dowladda federaalka kumeel gaarka ee Soomaaliya ayaa guulo ballaaran ka sheegatay dagaalo qaraar oo maanta ku dhex maray iyaga iyo xarakada al-shabaab magaalada Muqdisho. haddaba faafahinta warkaasi waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Nimca Maxamed Bashiir. dagaalkan oo u dhaxeeyay ciidamada dawladda oo ay kaabayaan kuwa midowga Afrika iyo xarakada al-shabaab ayaa aroornimadii hore ee saaka ka qarxay xaafadaha Tiida iyo Bangala oo ka tirsan degmada Dayniile ee gobolka Banaadir. dagaalku ay barbar socdeen duqeymo xoogani ayaan loogeyn khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay iyadoona goobta uu dagaalku ka qarxay ay ahayd meel bannaan oo aan lahayn dar waxaana hubaal ah in khasaare uu soo gaaray dhinacyadii dagaalamayay maadaama uu dagaalku ka duwanaa dagaaladii hore uga dhici jiray magaalada Muqdisho. abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Cabdikariin Yuusuf Aadan Dhagabadan oo saxaafadda kula hadlay aaga hore ee dagaalka ee xaafadda Tiida ayaa tilmaamay in dagaalkii saaka ay ciidamada dawladda iyo kuwa midowga Afrika ku qaadeen xarakada al-shabaab ay guula ka gaareen kulana wareegeen dhul ballaaran oo muhiim ah isla markaasina ay khasaare xoogan u geysteen dhinacyadii la dagaalamayay. wuxuuna abaanduuluhu xusay in ciidamadu ay dagaalada sii wadi doonaan inta ay gacanta ku dhigayaan guud ahaan magaalada Muqdisho oo inteeda badan ay xilligan gacanta ku hayso dawladda Soomaaliya. ciidamada qalabka sida guutada saddexaad iyo guutada afraad iyo ciidamada Hindi ayaa ka qayb galay dagaalka kan guulaha ama meelaha ay marayaan ay ka soo horiyeen. waxaa iskale haddaas ilaahay baa iskale ilaahay baan ugu shukrineynaa awood iyo طاقة iyo tabar aan leenahay kuma imaan awoodda ilaahay uu na siiyay baan marka ilaahay baan u shukrineynaa baada saxaafadana sida baan ay dagaalka uga qayb gashay waa ugu xadinaqay laakiin mid waa yeeli waayay baada saxaafadda al-shabaabka inay daayaan oo yiraahdaan kooxaha jibiya jahdiidka xawaariidka inay yiraahdaan waa diido marka sidaas daraadeed maanta ay ugu dambaysa hadalkaan oran lahaa wixii ka dambeeya haddaadnan oran isuguma imaanayno shiir jaraay weli ma baqatin baa idinku jira ma baqaysa baqatinka iska dhaafa ciidamadu dhul dheer iyo masaafo dheer bay soo mareen dagaalku maaha goobtaan aan joogno degmada Dayniile ilaa iyo meeshii maxay ahayd ii sheeg gaar carab kufta ilaa iyo aagagaas oo dhan dagaalku waa ku fidan waana la joogaa waxaana rajaynaynaa waxa harayna muddo gaaban waxaan hadda uga danaynay cadowga hor taagan oo weyn ma arko waxaan u danaynaynaa dadka shacabkaahu inay ka hawlsadaan waayo xabaddii aan ridnaa waxay ku dhacaysaa qof shacab maantana aad baan u faraxsanayo meel bannaan inaan nimanka iskugu nimaadno muddo badan baan raadinaya waanaad aragteen adinka joog baad u haydeen marka meesha bannaan la iskugu yimaado siday cagaha wax uga dayayaan. inkastoo dagaaladii maanta ka dhacay degmada Dayniile ee gobolka Banaadir ay ciidamada dawladda iyo kuwa midowga Afrika kula wareegeen goobo fara badan oo muhiim ah ayaa dhanka kale waxaa guula ka sheegatay xarakada al-shabaab oo sheegtay inay dagaalkaasi ku dileen ciidamo aad u fara badan. ma jirto labada dhinac cid soo hadal qaaday khasaaraha dagaaladaasi ka soo gaaray dadka rayidka ee ka agdhow goobihii ay dagaaladu ka dhaceen. howlgalladan ay ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ay kula wareegeen qayb ka mid ah degmada Dayniile ayaa qayb ka ah howlgallo ay maalmahanba ku baacsanayeen xarakada al-shabaab kuwaasi oo ku doonayeen in sida ugu dhaqsiyaha badan ay meesha uga saaraan al-shabaab oo in muddo ah gacanta ku haysay qaybo fara badan oo ka mid ah magaalada Muqdisho. Nimca Maxamed Bashiir, deegaanka Tiida ee degmada Dayniile.